السلام الله عليكم داود يا الوالد السلام ميل والبو دنيا دعلة كجوكتان يا ساعد والبو أي مركز إدين تاي هل كان يوداكسن برودكشن أو آلا بكلاسو عن شرتين وربحنا دي يقدم بيا دلك الصومالية يقدي يدبدي سبا فضلا داود وها حسوسني كأدي أي تاي مركي كوجور رئيس هل كان سبقتي إن أذنه المامين إن أتركم تتشانل كان جنبلال كان فرتد si ay ku soo gaaraan warbixinada aan halkan 24 saac soo galino waad ku maasan tahay ku biso biiritaanka channelkeena waa 12 bisha Agosto 2019 qodobada ugu doorka roon ee warkeena maantana waxaa kamid ah xaaladda maamulka Jubbaland oo doorashada sii galayso oo aad u cakiran iyo guddiga doorashooyinka Jubbaland oo jawaab degdeg ah ka bixiyay warqadii ka timid qaramada midoobay xaalad culus ayaa ka taagan soo doorashada duqo cusub ee gobolka Banaadir kadib geeridii ku timid Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo beel isku khilaafsan musharax ay wateen ciidamada Soomaaliya ayaa diray xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab dawladda Soomaaliyana waxa ay cafis u fidisay 8 mas'uul oo ku eedeysnaa dil wadareed Ali Maxamed Geedina wuxuu eedeyn dusha uga saaray madaxweynayaasha soo maray Soomaaliya in ay ka gaabiyeen maqaamka Muqdisho fadlan daawada waxa xasuusiniga ah inaadan hilmaamin inaad muuqaalkan leeg saartid u shirgaraysid asxaabtaada waad ku maasan tahay haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa jawaab degdeg ah ka bixiyay warqad uga timid xubnaha beesha caalamka oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dhacaya bishan warqadaasi oo ku saxiixnaa ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa lagu muujiyay walaac ay ka qabaan saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka doorashada Jubbaland qoraalka James Swan ayaa qayb kamid ah lagu yiri sidee guddigu u xaqiijin karaa in dhammaan musharaxiintu si siman uga wada qayb gali karaan tartanka waxa uu guddigu sheegay inay kalsooni weyn ku qabaan in doorashada ay yeelato sifooyinka looga baahnaa ay ah in ay si xor ah iyo xalaal ah ku dhacdo geedi u socodka doorashadu waa mid loo wada dhan yahay ayaa lagu yiri nuqul kamid ah bayaanka guddiga iyadoo ay jiraan taabashooyin ka imaanaya musharaxiintu hadalka guddiga ayaa ku soo beegmay xilli dawladda federaalku ay shuruud adag uga dhigtay aqoonsashada natiijada ka soo baxda doorashada in la maro habraaca ay u dajisay habraaca ayaa waxa ugu muhiimsan 3 qodob oo kala ah in wasaaradda arrimaha gudaha federaalku ay diiwaan galisho odayaasha soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka cusub in guddi doorasho la sameeyo kadibna doorashada guddoonka baarlamaanka ka soo diyaarinaya doorashada madaxweynaha cusub meeshana laga saaro mid ka haatan shaqeynaya in doorashooyinku ay ku dhacdo midkood xarunta qaramada midoobay ee magaalada dekadale ee Kismaayo ama taliska booliska xarunka Jubbada Hoose si kasta oo Jubbaland oo hore u diiday soo jeedinta dawladda federaalka ayaa ku adkaysatay in arrimaha doorashooyinku ay yihiin kuwa u gaar ah maamulkan oo isaga kaliya u go'aamin karo madaxweynaha Jubbaland oo hogaaminaya tan iyo asaaskii maamulkaasi 2013 ayaa hadda kamid ah musharaxiinta isagoo doonaya in mar saddexaad la soo caleemo saaro geeridii duqa magaalada Muqdisho iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow kadib markii laga gudbay tacsidii qarameed waxa soo baxay musharaxiin fara badan oo xilkan u taagan saddex kamid ah waxay ka soo jeedaan beesha Daawud oo xilkaasi doonaya inay hantaan si ahaatee mid walba uu dhinac u ordayo siyaasiyiin beesha ahna taageerayaan warar hoose oo wadaagsan ay heshay ayaa xaqiijinaya in saddex musharax oo ka hayb injineer Yariisow Allah u raxmada balse kala jufaa inay xilkaasi xusuldoob ugu jiraan kuwaas oo beesha Daawud ay ka dhasheen ka dhex abuuray loolan adag iyo in mid walba jufadiisa dhinac u ordo saddexda musharax ee halkaas u hanqaltaagayo oo kala ah Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhagay oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka baarlamaanka xilligan haddana ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha ee dhinaca sharciga isla markaana ah aqoonyahan dhinaca sharciga bartay waa aragna Cumar Cabdullaahi Xasan Qurbajoog soo noqday gudoomiyaha degmada Wadajir balse xilkaasi laga qaaday iyo Cali Gacal oo agaasimaha gaadiidka cirka iyo dhulka dhamaantood waxay ka soo wada jeedaan beesha u ka dhashay marxuum Yariisow kulama gaar ah oo lagu mideynayay musharaxiintaasi ayaa guul daraystay kadib markii waxgaradka beesha ay ka dhasheen ay soo jeediyeen inay habootaan in hal musharax lagu midoobo xoogana la isla saaro si loogu guuleysto musharaxiinta kale ee xilkan doonaysa in loo magacaabo tafaraaruq ay midnimo la'aanta in hal musharax ay isku raacaan ayaa noqotay mid niyad-jabka waxgaradka beesha oo ugu horeeyay ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo maalmihii la soo dhaafay ku mashquulsanaa tacjida injineer Yariisow ee madaxda dawladda iyo bulshada Soomaaliyeed ugu imaanayeen hase ahaatee waxaa socda dadaalo lagu mideynayo musharaxiintaas inkastoo beesha ay doonayso in xoogga la saaro aqoonyahanka rug cadaaga ah Abukaati Cumar Dhagay ay u arkaan inuu mudan yahay in xilkaasi uu qabto halka Cali Gacal loo sheegay inuu xilkiisa agaasinimo dhuuqsado Cumar Cabdullaahi Xasan isna hore loo soo tijaabiyay oo san madaxda dawladda qaarkood taageero ka haysan sababta xilka gudoomiyaha degmo looga qaadayna ay meesha ku jirto ugu yaraan 16 ka tirsan Al-Shabaab ayaa la dilay markii ciidamada Soomaaliya ay weerareen goobo ay maamusho kooxdaasi sida ay sheegtay warbaahinta dawladdu saraakiishan oo la hadashay warbaahinta maxalliga ayaa waxay sheegeen in gulufkii uu xaddi ka dhacay tuulooyin ku dhow deegaanka Awdhegle oo gobolka Shabeellada Hoose taliska ciidamada xoogga dalka oo saxaafiyada soo saaray ayaa wuxuu dawaalka ka qaaday in khasaaraha dhimashadu intaasi ka badan yahay
guutada 66 oo howlgallo roonda ah ku jiray waxay maanta howlgal kadis ah ay ku dilaan 16 ka mid ah argagixisada hareeraha Awdheegle ayaa lagu yiri warka qoraalka ah oo arkay wadaagsin arbacadii ayay ahayd markii afar ka tirsan al-shabaab la khaarijiyay markii militarigu uu ekeeyay saldhig ay xoog ku lahaayeen isla Awdheegle geesta kale ma jira wax war ah oo ku saabsan sheegashada dawladda oo ka soo baxay dhinaca dagaalamayaasha gacan saar kala leh shabakada al-Qaacida talaadii ayay ahayd markii ciidanka Soomaaliya ee garabka heliyay kuwa AMISOM ay qabsadeen deegaanka muhiimka ah ee Awdheegle taasi oo 70 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed ka xigta magaalada Muqdisho xeeraalinta iyo dawladda Soomaaliya ayaa fasaxday ugu yaraan 8 qof oo mas'uuliyiin ah kuwaasi oo ku eedeysnaa dambiyo isugu jira dil wareed iyo barakicin dadweyne dadkan ayaa dhammaantood mas'uuliyiin xilalka iyo maamulka Jubbaland saameyn siyaasadeed iyo mid amni oo culusna kula deegaanada maamulkaasi gaar ahaan gobolka Gado xubnahan ayaa waxaa ka mid ah wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland taliyaha ciidamada NISA ee maamulka Jubbaland u qaabilsan gobolka Gado gudoomiyaha hore ee degmada Balad Xawa mas'uul ka tirsan qaybta amniga ee degmada Doolow iyo dhowr qof oo kale liiska dadkan ayaa waxaa loo gudbiyay hay'adda u dooda xuquuqda bini'aadamka iyo qaramada midoobay sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda maxalli ah oo gobolada ka shaqeysa mas'uuliyiintan ku eedeysnaa tacdiyada ka dhacay gobolka Gado ayaa dacwad ka dhan laga furay magaalada Muqdisho markii madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud balse tan iyo markaas marna ma imaanin maxkamad iyadoo sidoo kale garsoorka Soomaaliya aysan u yeerin mas'uuliyiinta la eedeeyay sargaal sare oo ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kana tirsan hay'adda Faanole ee ka shaqeysa gobolada Jubbooyinka ayaa wadaagsan u sheegay in xeeraalinta Soomaaliya ay fasaxday dadkan 8 qof ee ku eedeysnaa dil wadareed iyo barakicinta dad shacab ah dilalka ugu badan ayaa ka dhacay gobolka Gado ee Soomaaliya waxaana ugu sii diran degmooyinka Doolow Balad Xawa Luuq iyo Baardheere halka qaar kalena ay ka dhaceen gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo ee Jubbaland Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa si kulul uga hadlay dhismaha maqaamka Muqdisho iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee maalmaha waday ololaha maqaamka caasimadda Geedi ayaa su'aalo ka keenay sababta madaxweynayaashii hore u laaleen maqaamka caasimaddu yeelatay iyo su'aal uu isweydiiyay oo ahayd madaxweyne Farmaajo goorta uu xukunka ka dego miyuu dhihi doona maqaamka caasimadda hala sameeyo Maxamed Geedi oo xilligan ah la taliyaha madaxweynaha ayaa hadalkiisa u muuqday weerar cad oo ku wajahan madaxweynayaashii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ku tilmaamay inay baabiyeen xuquuqdii caasimadda iyo maqaamkii ay yeelan lahayd waxa uu tusaale u soo qaatay in xilligii uu ra'iisul wasaaraha in xukuumaddiisu ay diyaartay sharciga maqaamka Muqdisho iyo in golo deegaan rasmi ah loo dhisay ay doorteen gudoomiyaha gobolka iyo duqa Muqdisho balse sharcigaasi u baabiyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed sababta hadda ay u doodayaan ay tahay wax la yaabo waxa uu eedda maqaamka Muqdisho loo soo dhicin waayo ku eedeeyay xildhibaanada labada qaran oo mas'uuliyadooda u sheegay inay gabeen loogana baahnaa inay baarlamaanka mooshin ka galaan xuquuqda caasimadda isagoo tilmaamay inaysan jirin xildhibaan maalin ka hadlay iska daayay aysan xitaa qalbiyadooda ku soo dhicin daawadayaal sida aad soo daawateenba intaasina waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa ee warka maanta aan idiin haynay inta aan warkan mid ka xiiso badan ku kulmi doono annagoo isku duwan bahda wadaagsan waxaan idinkaga tagaynaa sidaas nabadgelyo